markaan u tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen garowe saddexdana kaliya shireen nimankii kale oo saaxiibadeen ahayna wuxuu yiri ha imaanina xamar maxamed banaankeeda jira anu inta halka tagin waa la hadlay waxaan qorqor baan la hadlay waaraan la hadlay waara alle marka xamar ku sugnaa lafta gareen baan la hadlay waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan waxaan ka codsaday xamar markaan tagin inay noogu yimaadaan waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karnaa hadduu madaxweynaha imaado yiraahdo waa imaanayna kulankii ugu horeeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiis inay ilaawsan yihiin baa binici karta waa inaad dib u raacdaan maalintaan tagnay maalintii ku xigtay habeenkeedii annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyay twitterkiisa la soo dhigay inuu shir jiro official ah shirkaas maan tagin maxaa yeelay heshiisku maanahay annagu waxaan nidhi shir gaar ah ama waxa unilateralka la yiraahdo umaan imaan halka waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinayay heshiis wada jir ah oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha kamid ka ah ay u siman yihiin markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay'adihii dawliga ah mujtamacii dawliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kale ee xamar ku sugnay dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulanay musharaxiintii xilka u taagneed ay kamid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas xasan sheekh uu kaliya uu ku joogay dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulanay baarlamaanka aqalkiisa sare waxaan la kulanay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose waxaan la kulanay safaaradaha jooga waxay soo dedejisay taas pressure ah in loo yeero madaxdii kale dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado waxaan rabaa inaan hadalkeena hadal gadaal baa uga noqonayaa waa tanaasulaa buu yiri inuusan talaasulin baan rabaa inaan inii sheego oo uu marka hore aado wado xiran oo ay suuragal ahayn in darbiga madaxa la dhaco oo ku khasbanaado inuu dib u soo noqdo ninkii ka shaqeeya waxaan shaqeynayn aakhirka waxa weeye isagu baa dib u soo noqonaya waxa ay noqotay in la isu yimaado waxaan rabaa maanta maadaama xalkii Soomaaliyeed uu cakiran yahay inaan public u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya haddaan anigu been sheegayna waxaan rabaa inuu isagu declare gareeyo dhawa beentiis waa kulannay waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ahay magaalada jooga iyo dadkii kale wuxuu yiri maxaa ka doonteen dadkaas anaa martii ahaydeen hadda caasimadii magaalada madaxda Soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin waliba hal isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah waxaan leedahay arkinina oo kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin waxaan taas suuragal ma Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka